warkulan wacan wanaagsan ilaahantii daawadayaasha qiimaha qadarinta mudan ee halkan ku saaxiibno oo ku soo dhawaada war waxaan dal idib idinkaga hayna war waxaan dal idib idinkaga haynago halkani maanta waxaan u fadhiyaa ama aan doonayaa inaan la wadaago inaan idinku baraarujiyo sidaad ula socotaan iyo qaabkaad u daawanaysaan iyo sida waliba xamaasadiinu ay tahay maadaama aan shucuurtaydu aad u sarreyso dhididku saa iga daahayo xaaladda doorasho ee dalkeena hooyo caawa xaaladdu meel fiican oo wanaagsan ayay maraysaa alxamdulilah waxba dhiba kama dhicin weli doorashadana meel fiican ayay maraysaa waxaan rajaynaynaa in lagu guuleysto laakiin adiga saaka waa markuu bariyay taleefanka isku hordhigtay ama dhalada isku u shidatay u eeganaysay indhuhu ma ku madoobaadeen qof aad taageeraysay oo shaksi ahaan aad lahayd qofkaasaa fiican ma kaa dhacay raamka koowaad ma ku haray raamka koowaad ma kaaga kufay qofkaa wadatay kow qofka wadatay ma soo baxay haddana oo raamka saddexaad ma usoo gudbay saacadda hadda aan kula hadlayo raamkii saddexaad ayaa la aadayaa laakiin break ayaa lagu kala maqan yahay weli liskuma soo gudbayo innaga oo breagaas ay uga faa'iidaysanayna in yar oo Janison leedahay kaliya intaan ciir xabsaasay in leer buuqayo ayaa halkan laba qodob oo ah muhiimadda koowaad iyo ka noqon shakhsi jeclaysi iyo nin jeclaysi iyo ka noqon qabyaalad iyo habal jeclaysi iyo ka noqon bal adu commentigaaga waxaad nagula wadaagtaa qofkii aad rajaynaysay in uu soo baxo ama aad wadatay ka ahaan shakhsi ahaan adigan idaawanaya roundka koobaad miyuu ku haray mise waa uu soo dhaafay haddii su-aashu ay noqoto waa uu haray micnaheeda ma ahan inaad adigu tagtay oo meesha ka baxday micnaheeda ma ahan waayo muhiimadaadu waxay ahayd madaxweyne Soomaaliya dhan matalo 4 sano ee nagu soo foodlay ee haddii Allah awood leh in baritan soo socota laga bilaabo haddii uu soo gudbay oo uu soo dhaafayna والحمد لله واسدا جعلت سدا كذلك هذا ولي واحد دورنيسا أما أتاجريسا أما أتاجنت هاي أو عندها وبيرسا وفيرنيسا مدحوينها أفرتنا صوت الصومالي أظن هو جامل لها يعني رجين سأنو صقروا مركز سؤال وسؤال أن ودينا يو ضدك استعماله براه برشدة يجا مركزي أن ليه هاي سؤال هذا ما أنت أكله حماسة هذا يوقع سنت هاي لايف يا لوجود الجيران ملكست يا لجها الله حالات ودوا مرياو wadooyinka marka tagto kale barbaraha waxa la taagan yahay ama wadada waxa la taagan yahay mikrofoono iyo kaamirooyin la taagan yahay laakiin anigu waxaan su'aalo dhab weydiinayaa dadka social media gaar ahaan YouTube iga daawanaya ama ay daawan doono ama saacadan aan hadlayo daawanaya kuwaasi oo leeyahay lambarka koobaad ha isku dayina inaad xamaasad qof jeclaysi ah aad muxuu ahay ama qalbi jab u dareento ama farxad u dareento waayo shakhsigani adigu ma matali doono wuxuu matali doonaa Soomaali weyn ay matali doona adig ahaantaada waxba kuma tari doono wuxuu wax u tari doonaa ama wax u dhimi doonaa dalka iyo dadka dhammaan caam ahaan Soomaaliyeed inta luqad Soomaali ku hadasho ee dalka dibadda jooga ay wax u tari doonaa ama wax ka goyn doonaa oo dhibi doonaa oo dhuntur dhufayna ku noqon doonaa saas darteed ha ku farxin hana ka nixin shakhsigii soo baxo wajibtaan jeclaysi iyo taageero iyo inaa habelnimo waxa soo jirta qof maanta la isleeyahay waxbuu qabtay iyo waxba ma qaban ku leeyahay waxa dhan way jiraan eedeyn badan ayaa socoto laakiin adigu dhagta ka furayso waxa tiraahdaa kii soo baxaba rabbi ha ka dhigo kii Soomaali weyn ka tarin laha aayaheeda iyo mustaqbalkeeda iyo da'yarta hadda soo kacayso mustaqbalkooda dambe intaas hadda kula dhaafto ogow dhiiqad waxa kula jirta kala bax dhiiqada lugaha halkan hadii aan u soo laabto doorashada sidii u socotay waa idinka ogaa roundka koobaad ama wareegga koobaad waxa ku haray dad aad u tiro badan maadaama ay ahaayeen 39 musharax oo madaxweyne kaliya waxa ka soo gudbay saddex baa iscashisay yaa markii hore iscasilay ama isreebay oo waxay yani muxuu ahay casilaad ku muujiyeen halka ayada ahayd ee codbixintu ay ka socotay waa teendada Efesioni inta kale ee soo hadhay meeqa soo haray 39 saddex laga jaray 36 ee soo haray 36dii kaliya roundka koobaad waxa ka soo gudbay 4 nin afartii nin ayaa waxay isla aadeen roundka labaad ay isla aadeen ama wareegga labaad waa wada arkaysan oo wada muuqanaysa doorashadani waxa la oran karaa waa doorasho daahfuran oo haba yaraatay aan faragelin shishay waxba aan ku jirin because anaga dhan wada arkayna inagoo dalka joogin ba halkan ka maamulayay commentiyada ku qorayno lahayn wari ka daaya saa ku wada qaada xambaara dhiga tasduuq alla waxbu qaaday waxba raject waraaqad waxba la kansalay noocaas baan u hadlaynay waayo inagu dhulka ma joogno laakiin waxaan eegaynaa shaashadaasi saas darteed maadaama wax daahfuran oo soo arkay ay ahayd waxa la oran karaa musuqmaasuq iyo faragelin shisheeye iyo lacag iyo balaayo iyo wax ku jira baa la oran karaa qofkii soo baxo waxa uu ku soo baxay codkiisii iyo xildhibaanadii markaas u coday ayuu ku soo bixi karaa
ma jirto qof musuq maasuq meeshaasi maanta ka samayn karo dalalka qaar waxaa ka jirta musuq maasuq doorasho markii la yidhaahdo yacni ha codeeyaan shacabka oo kale markii la yidhaahdo oo kale waxaa dhacda in codad kala gedisto laakiin tan madaxweynayaashii ayaa jooga oo fadhiyo qof kastoo la yeeriyo magaciisa boorkiisa ay tusaya waa cadaalad waa si fiican oo nidaamsan weeyaan marka doorashadani sida ay u dhacayso ama ay u socoto habdhaqankeeda waa si wanaagsan laakiin waxaan rajeynaynaa by the time ama waqtiga lagu dhawaaqo qofkii markaasi ilaahay uu qadaray inuu madaxweyne u noqdo dalka Soomaaliya 4 sano soo socoto in aysan waxba isbedelin oo hawshu ay ku socoto si wanaagsan oo degan oo sidaan u baahnayna oo qalalaaso iyo khilaaf iyo waxba uusan imaanin taas ayaan ilaahay ka baryeynaa adiguna aamin soo dheh oo ilaahay ka bari inta markaa ka soo gudubno 4 qof ee u soo gudbay raamka muxuu ahaa labaad ma raamtu u soo gudbay waxay ahaayeen mudane xasan sheekh maxamuud oo ahaa madaxweyne hore ee dalka Soomaaliya soo muxuu ahaa xilka soo qabtay xasan cali khayre oo ahaa ra'iisul wasaaraha ay raahday dawladda hadda waqtigeeda dhamaanay ahaa sidoo kale madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo oo ninka ugu dambeeyay madaxweynayaasha ahaa سعيد عبد الله الدنيا أسيانا مدحوينها والجولتك بوتلان أفرتانين أيا وحي أصوب بحين سيس دمجوجة مثلا طالع أوسو قد بين وريجي لبعض ما كي أوسو قد بين هادو الله كوس سما أقولي هاي وحي كلاوتين سعيد عبد الله الدنيا أيا هو جامري أما أوري رامكا كوباد سعيد أوري ووحو مريي لحدن يشان هالكا مدحوينه farmaajo oo ku soo xigay uu marayay 59 halka madaxweyne xasan sheekh axmed aan idhaahday xasan sheekh maxamuud oo isagana marayay 54 halka aan dhahay 52 halka xasan cali khayre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya oo isagana uu la soo wareegay raamka labaad uu la soo aaday 47 waxay ahayd aniga oo halkan fadhiyo oo maanta dalka joogin ayaa halkan ka arkay waa arrin fiican weeyaan arrin fiican saal ugu wada arrin fiican arrin aad u wanaagsan weeyaan saas darteed anigu indhaha ayaa xanuunay saan maanta 4 saac u hor fariistay dhalada ayaan saacadan oo hadda la joogo aan la hadlay 5 saac baar 5 saac inuu si aadan yahay ayaan sidii u eegaya shaashada wali break yar baan kaga faa'iideystay inta kale dadka break aad xitaa kuma jirin دقيقة يساس بيقول عفين كل يوم يساس ما اسكاها وايو waxaan lahaa un ilaahay uu hogaamiye fiican kii soo baxaba rabbu ku khayr la kadhig insha Allah waxaan rajeenaynaa kii soo baxaba inuu noqdo kii Soomaaliya mideen lahaa ka shaqeyn lahaa horumarinteeda iyo waliba soo dhiskeeda iyo soo kabashadeeda insha Allah ta'ala sida ilaahay ka rajeenayo waxay dambe habeena adiguna insha Allah waxaan rajeenayaa intaan lagu dhawaaqin madaxweynaha soo socda adiguna تلاسي علاميو الدعاء iyo alla bariga iyo wixii fikir ahaan adigu khilaafsan tahay ama adigu raacsan tahayna qaybta comment-ka inoo balana mahadsanidin aad idin salaamay dawadayaal